الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صدحات يا كتاب كان تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله. باب كي لباد شيخ وحو كدغي كراهية تسخط البنات وحا وحفي عن أنهين أو آد أحن إن قبلها لو عروضه ama qofku markii gabadhi u dhalato uu xanaaqo arintaasuu sheekhu ka hadlayaa. rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fi suurati shuuraa aayadda 49 ilaa 50: lilaahi mulku samaawaati waalard yakhluqu maa yashaau yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijuhum dhukuraanan wa inaathan wayajcalu man yashaau caqiima inahu caliimun qadiir. aayaddaas macnaheeda haddaad fiiriso, rabbi subxaanahu wa tacaala baa iskale mulkiga iyo tasarufka iyo maamulka samaawaadka iyo ardada adduunka oo dhan weeye. wuxuu rabana wuu abuuraa rabbi subxaanahu wa tacaala. qofkuu rabana wuxuu siiyaa, wuxuu alla rabuu siiyaa. kuu rabo gabdhuu siiyaa, kuu rabana wiilal buu siiyaa, kuu rabana wuu isugu daraa. midna labadaba ma siiyo oo caqiim waa mandhalays buu ka dhigaa. culimadu waxay dhaha arrintaas oo saa ugu jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala qoyska qaarna wuxuu siiyey gabdho, qaarna wiilal, qaarna waa la isugu daray, qaarna kana lama siinin kana lama siinin. innahu caliimun qadiir. rabbi wuxuu og yahay caliimun, xaaladda qof walbuu ka warqabaa. ma ku shukrinayaa marka la siiyo mase ku sabrayaa haddii loo diido. qadiirun calaa kulli shayin, wax walbana wuu awoodaayo. rabbi wuxuu awoodaa inuu siiyo qof wax loo diiday, wuxuu awoodaa inuu ka manciyo ruux wax la siiyey. ambiyada ilaahayna waxaa loo qaybiyaa 4. aadam calayhi salaam waa la abuuray oo turaab iyo ciid baa laga abuuray, aabbana ma lahayn, hooyana ma lahayn. xawaa calayhi asalaam iyada waxaa laga abuuray min dakar oo feedhii aadam baa laga abuuray, hooye ma lahayn. markaa ciisa calayhi salaam waxaa laga abuuray hooyadii maryam, aabba ma lahayn. ummadda inteeda kalena aabbi iyo hooyadaba way leeyihiin. marka waa rabbi tasarufkiisa iyo maamulka alla weeye umuurtu. arrimahaas oo dhani waa cadaayaadka rabbi ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu bixiyo. qofkuu rabana rabbi waxbuu siinayaa, qofkuu rabana rabbi waa u diidayaa oo ma siiyo. haddaba fawaa'id baa aayaddan ku jira tiro badan. faa'iidada ugu horeysa waxaa la yidhaha rabbi wuxuu ku bilaabay gabdhihii baa lagu bilaabay. marka u fiirso maxaa gabdhaha loogu bilaabay culimmadu ka hadla. yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau adhukuur. gabdhaha lagu bilaabay oo dadka qaar baa culays ay la tahay gabadhu, marka arrintaasaa gabdhihiiba lasoo hormariyey. arrinta labaad oo loogu bilaabay waxay dhaha culimmadu inay tahay ikhtiyaar rabbi. ilaahay kuu rabuu siiyaa qofka, laakiin ikhtiyaarka dadka ma aha. haddii dadka la doorimaad gelin lahaa waxaa laga yaabaa inay wiil ku bilaaban lahaayeen, laakiin allah subxaanahu wa tacaala waa doonidiisa, iyaguna wax awooda kuma laha. arrinta kaleo xigmada ku jirta ama faa-iida ku jirta waxaa la yidhaahdaa gabdhaha dadkii jaahiliga ahaa way necbaayeen, wayna dibdhigi jireen. sidaasuu alle usoo hormariyey subxaanahu wa tacaala. faa-iidada kale oo kusii jirta aayadda, rabbi subxana wa taala inaath markii la sheegay, nakira ismu nakira wey, inaath oo al lama gelinin. waxaana la geliyey ragga markii laga hadlayn adhukuur baa la yidhi oo al baa la geliyey. waxay yidhaahdeen gabdhaha waxaa lagu kabay in lasoo hormariyo iyagii, wiilashana waxaa iyagana lagu kabay in tacriif la geliyo al la geliyo. ibnulqayim raximahullah baa wuxuu leeyahay gabdhaha al inaath waxay ugu cadhoon jireen akhlaaqdii dadkii jaahiliga ahaa weeye, inay maaragtay ka xanaaqi jireen, ay ka xumaan jireen. ilaahina arrintaas subxaanahu wa tacaala wuu ka digay oo rabbi wuxuu leeyahy waidaa bushira axaduhum bilunthaa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiib. suuratu naxli. yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bihi an yumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab alaa saaa maa yaxkumuun. si cajab badan buu rabbi subxaanahu wa tacaala aayadda 58 59 fi suurati naxli baa lagu cabiray. haddii loogu bishaareeyo gabadh
wejigooda madoobaanaya. Gabadh baa kuu dhalatay haddii la yidhahdo wejigaa mugdi noqonaya, markaasuu qofku maaragtay qoomkiiyo dadkana waa iska qarinayaa. marka ama wuu haysan isagoo dareemaya dullinimo, ama wuuba dilayaayoo ciidu ku aasayaa. subxaan allah. sidaasoo ahaan dadkii jaahiligaha iyo dhaqankoodu gabdhaha ay ula dhaqmi jireen. marka gabdhaha waxaan sheegi doonaa qaybta inoo soo socotaa fawaa'idda ay leeyihiin iyo xikmad sheekh cumar faaruuq raximahullahu runtii aan ka dhageystay, iyo gabdhuhu xitaa inay wiilka ka fiican yihiin adduunka marka la joogo iyo aakhare labadaba way ku soo aroortay. marka insha allahu tacaala qaybta xigta ayaan u dibdhigaynaa.